Maamulka degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kawaan halkaasi ka hirgeliyay waxaana lagu qalaa xoolaha. Maamulka degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa kawaanka la sheegay inuu bariya ka hor xiriga ka jaray waxaana sida caadiga looga dukaameysta kawaankaasi iyadoo dadka deegaanka ay si weyn u soo dhaweeyeen maadaama ay heleen kawaan hilib ka doonan karaan. Kiilada hilibka ee cadka amba idaha ayaa laga gidayaa 80,000 sida ay sheegeen dadka deegaanka, balse dadka deegaanka ayaa sheegay in eriga maamulka oo sakawaadka lagu qaaday kaliya lagu qalo oo erigi kale oo deegaanka ah aan lagu qalin, balse sababta ay ku sheegeen in eriga dadka deegaanka ay jecel yihiin marka hore suuqa geeyaan eri yar-yarka ah sida orgada iyo malafaqada iyo idaha yar-yarka, balse taas ay maamulku sheegeen in lagu qalo kawaankan kaliya la keeno neef jabsadan amba neef ku dhow. Sidaas ayayna cabasho ka yihiin sida ay noo sheegeen Beedka Runugod Media oo mar walba xog ugu oo ah deegaankaas ayaana warbixintan ka diyaariyay, balse dadka deegaanka ayaa dhinaca kale u arka horumar weyn oo la gaaray. Kawaanku ma ahan kawaan casri ah balse waa kawaan macbala waana kawaankii ugu horeeyay ee degmada laga furo. Degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxay si wanaagsan u dhismaysaa sanadihii ugu dambeeyay gobolkaasi. Dadka deegaanka waxay muujinayaan in loo ogolaado kawaanka eriga malafaqa si loo iibiyo kadibna loogu qolo halkaasi. Dadka deegaanka waxay sheegeen in aad ugu badan tahay xoolaha yar-yariiska sida malafaqa, idaha iyo yarka ayna doonayaan in halkaas ku gadaan. Maamulka degmada Runugod ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaana dadar hawshan ku wada. Sida ay noo sheegeen dadka deegaanka dhanka kale waxay si weyn u arkaan horumar ay gaartay degmadoodu waxayna u sacabatumayaan horumarkay mar walba ku talaabsan, balse waxay doonayaan in eriga yar-yarka laga iibiyo ay suuq u helaan dadkaasi. Beedka Runugod Media fadlan la socda share dhaha like na saara fadlan booqda YouTube Runugod Media sa oo heshiin xogag badan halka aan ku daawacno mahadsanidin asxaabta.